السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم. waxaa dhacda in khudaarta iyo cuntooyinka qaarkoodba la maydho inta aan la isticmaalin amaba aan la karinin ka hor si loo wanaajiyo nadaafadooda iyo dhadhankoodaba, laakiin dhinaca kale waxaa iyaguna halkaa ah cuntooyin laga digay in la maydho amaba biyaha la taabsiiyo inta aan la karinin ka hor, kuwaasoo ay ka mid yihiin beedka ayaa lagu sheegay inay la socoto maado ka ilaalisa inuu xumaado, sidaa darteedna haddii la maydho beedka ama ukunta ay ka dhalanayso inay ka tagto maadadaasi, beedkuna uu noqdo mid xumaada, isticmaalkiisuna dhibaato u geysta caafimaadka aadamaha. Hilibka digaaga oo la maydho inta aan la karinin ayaa lagu sheegay bakteeriyadii kaga dhiman lahayd dabku ay ku faafaysa madbaha, dhibaato weynna geysan karto. Hilibka xoolaha sida hilibka adhiga, geela iyo lo'da, isagoo hilibkaasi xilliga uu qaydhin yahay uu aad ugu nugul yahay bakteeriyada, ayaa dadka lagula taliyaa in hilibku xilliga uu qaydhin yahay aan la taabsiinin biyaha si aanu u noqonin mid xambaara bakteeriya halisa. Ilaahayna hayna ilaaliyo dhammaanteen.